هذا الكي أدقشي هدي أتري قروا كعبدي كفيعا ده نبي وعدة يدو أها سلعة أنا وكه الله نبي وعدة يدو ودارات وأرن أنصح هاي لكن أنقالني ما كدلني واحد شيخ مدرو ما قال يستكرم شيخ مدرو qofka diinta caaya noocu doonayaba ha ahaado waa gaal weeye qoladu doonaya ha ahaado kuwayn ummadeena ha kamid ahaado mar hadduu ilaahay caayo rasuulka caayo diinta caayo islaamka uu ka baxaya wax yidhi uu ku jiraan ma jiro culimada islaamka wax yidhi qofka inta caayay baa muslima ma hayno marka naagti way ka furmaysaa inantiisa ma bixin karo xoolihiisa hadduu caawa dhinta la dhaxli maayo baanka muslimiinta lagu shubayaa maxkamadda la taagayaa hadduu toobadkeena waa la dilayaa waxaasoo dhan cid fulinaysa ma haysaan dee meeshu way kala kacsantahay mid waliba halkaas isagoo ilka waaweyn ilaahay iyo nabiga caayaya oo cid wax ka qabata la 10 hadii loo dhigo bere hore la kala aamuslaayo marka ka warkiisu waa caynka afadiisina maxkamadda degmada ha tagto si ama loogu soo celiyo ama waraaqda looga qoro hadlaya hadalkaygaas qalad baa laga soo dhalin karaa dad qaar oo ku takhasusaa jira oo aad iyo aad cuyuubta dadka la raaciyo oo aad ugu takhasusaya marka hadalku siduu u socday iyo siyaaqu lahaa iyo meeshu ku yimid inta laga raro hadii hadal aadan lahayn lagu saaro ila hadalku waa margi baa liidaada mararka qaar waxa weeye barahan bulshada waad ku loolantaan oo loolan balaha ka jira waxay doonay baad uga noqoto hadii hadal aadan lahayd la leexiyo waa inaad adoon cidna u gafin qolana haysan culimada ula noqoto aduguna aad saxdo baan adigana kugu waaninaya hadalkii aad gashay hadii atiri garowa kacbadi ka fiican dheh nabigu cidaydu ahaa sallallahu alayhi waa ka hadlay nabigu waa cidaydo waa daarood waa arin ansax ahayn laakiin aan gaalnimo ka dhalaneyn waa شيخ مدرو شيخ مدرو haduu yiraahdo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ba cidaydaha ma ahayn baanu leenahay laakiin ma gaaloobin شيخ مدرو hadda adigi way hor fadhiya wixii sharay iyo hadalada sharkaay waxaas xagga naga dhigba anigu mid kale qof aan u jawaabay ama aan baalkii aan kala hadlay waxaas ma jiraan waxaan waa dhageystaa anigu nin baba fiiranahay diin waan aqaana cilmi ugu filan waa aqaana qof islaamnimo ku dhashay baan ahay hooy aaba korsadeen wax la baray baan ahay qof culimo iyo intaba garanayaan ahay saaxiibada ugu waaweyn ee culimada fuqahaada ugu waaweyn baa saaxiib la ahay horta de qof adiyaal ku roon yahay dad yar iyo intay meelahaas uga fuduudeen ama la caytamay ama la qad qaadanaya maahi laakiin adiga hadda shakhsi ahaan markaan meesha adan ku soo fuulay abaar baan dhageysanayay qof diin waligay kuma arag caaw ka hor haddana qof diin leh oo iimaan leh oo adiyaal ku roon yahay qof qabiil ku ataagayn oo aan adiyaal ku roon yahay reer riixayn baadila kaatay oo de cilmigiisa hadlaya oo aan qofna dabada ka riixayn baadila kaatay sidaas aan kula soo fuulay aan su'aasha ku weydiiyay sheekh habeen dhawad anagoo kaftamayna ba adiyaal ku roon yahay carab iyo dir iyo daarood iyo dirya loo kaftamayay marka baan nin waxaan ku yiri marka aan kaftamayna aan ku yiri anigu aalbayt baan ahay halkaas waxaan ka soo jeedaa carab baan ka soo jeedaayo nabigi baa ilma adeernahayo ma garanaysa ama qaraabanahayo aan ka agdhowahayo baan iri de nabiguna waa wakiilna lahaa xadiiskii nabigaaba ahaa qof kasta oo diinteyda rumeeya aniga gadaashay waa walaalkay marka meel nabiga baan wax wadaagnaa ama nabigaan walaalanahay ama nabi maxamed udgooni anoo ku faanaya laygu gaalaysiinayo de wax aan kala sii hadlo maarag haddii ay dembi tahay ama bahalki tahayna de adaaba adiga waa fadhidaa maanta hadda waa ii sheegi kadhaa oo waa dhihi kadhaa inaad nabiga sheegatay ama ku fahamtid alayhi salaatu wasalaam waa dembi ama bahalkii nabi maxamed waa carab baan iri waa quraysh daaroodna odayga daarood ahaana carab buu ahaa quraysh asalkiis kasoo jeeda kelmaddaa iri saasay u dhignayd waana waxa lala ordayo la leeyahay dadka ka dambeeya ama ii adeegsanaya ama waxaan soo qaadanaya waxay ahaayeen dadka qabaa'ilkan aan daaroodka ahayn dadka qabiiladan kale ahaayeen markaan de hadalka waa bixiyo aan adigu hadda waxay ii sheegtay inaad xoogaal ahayn markaan ku faahfaahiyo aan xogta si fiican kuu siiyo dadka ii soo qaadanaya oo igu dacaydeynaya waa gaal iyo waxaas qolyahan aan daaroodka ahayn oo aan ku iri nabiga idinka xiga bay ahayd marka saasay u dhacday sheekh waana mahadsantahay waa ka baxaya كابتن أيوة أنا أقدر أنت هذا بحن وحنجعلنا شيخ مطر ما بحي ولا شيخ عندي سنة شيخ كلمتي هذا يتهيد
garowe maka ayaa waxaan ka jeclahay garowe oo culimaduna ay dhowr mar soo celceliyeen baa waxaan jeclaan lahaa inaad sheekh walaalkeen aad weydiiso taasna sheekha oo faahin doonaa tan usoo gudbiyeyso bismillahi raxmaan raxiim horta masalada koobaad oo ah nabigu calayhi salaatu wasalaam daarood ayuu ahaa ayuubow horta masaladaasi sax maaha qadar sheekh madar waan kugu celiyo daarood buu ahaa mooran sheekhu nebigu reer binu haashim buu ahaa baan idhi daaroodkuna carab iyo reer binu haashim buu galaa طيب hadalku hadduu sidaa yahay oo sidaas oo nebiga u qirsan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu qurayshi ahaa haashimi ahaa sidaas ahaa calayhi salaatu wasalaam waxa weeye dee ishkaalba male markaas laakiin aad leedahay daarood baa nebigii ku abtirsado halkaa gala waa aaraadee dadku dhahaan oo hadda wax xaqiiqa iyo wax hadda naso ay ku taagan tahay aan jirin laakiin qofku wax waa zacmi waay qofku wax waa sheegan karaa haddaan anigu wax sheegto oo aan dhaho halkaasaan ka soo jeedaa oo nebigii baan galaa oo halkaas intaasoo qabiil oo intaasoo qoloo sheegataa jirta sooma marka taasi maaha wax ugun laga dhalin kara maahan qofku waa sheegasho wax uu sheegan karaa nebigii lama cayn calayhi salaatu wasalaam nebigaa sidaas ahaa hadduusan qofku dhihin nebigaa saasa ama nebiga uusan durin sallallahu calayhi wasallam laakiin uu sheegto dee sheegasadu laguma gaaloobo qofku waxa weeye uu sheegan karaa wixii khalad ah oo meesha kaga jirana waa laga sixi karaa sooma marka adigu hadda hadaabad la taagantay nabiga sallallahu calayhi wasallam ma dhihin oo sida nabigu waa aaminsanahay qurayshi buu ahaa haashim buu ka sii ahaa calayhi salaatu wasalaam halkaas laakiin anigu hadalkaygi waxaan idhi maxaa la yiraahdaa nabigu anigu daarood hadaan nahay nabigan ku abtirsanaa de waa zacmi waay ayada lafteedu daliilkeeda iyo buraankeeda ayay u baahan tahay laakiin wax ugun uu ka qabanayo ama lagu leeyahay waad ku gaalowday maahan sidaasaan taasna ku leeyahay salaadii maqribkaana ii joogta safarna waa iska ahaa masalada kale wixii xugunana marka wixii qof xugun la saarayo walaalayaal waxay u baahan tahay in loo noqdo maraajicdeeda qofkii la keeno sidaas oo kale hadda ninka loo waraysto maxaad arrinkaa ula jeeday maxaad ahayd uu qofku asagu iska warramo uu iska warbixiyo ilaa asaga way wixii hadalku ka soo fulay asaga loo celiyo wuxuu markaas ku maxmuuliyana in loo rumeeyo waay hadduu ruuxu yiraahdo anigu kelimadaas saas ay laakiin saasaan ka waday waanu u daynaynaa khalaas qofku wuxuu yiraahdaan ku wadaynaa hadalkaas anigu sidaas u ah saasaan ka waday aad baa maadsantahay jasaakumullahu khayran waa ku fasaxaynaa maadaama maqribku ku taagan yahay khayr badan ku rajeynayaa asxaabta kalena waa salaamaya jasaakumullahu khayran adigana waxaan jeclahay inaan is aragno ilaahay idanka insha Allah tacaala si gaar ah dhammaantiina waa inuu salaamaya waxaan kaga tagayaa gabagabadaydu waxa weeye sheekh madar hadii aad friends tihiin ninka la yiraahdo ama hadda aan soo follow gareynaya ama madar lambarkaaga ninka la yiraahdo Umar ila Umar haduu lambarkaaga hayo kale ay soo diro qaralayn siiyo gabagabadaydu waxa weeye walaalayaal xukunka takfiirinta ee qofka diinta ilaahay laga saaro xulum sahlan maahan ilaahay ka yaaba dhalinyaroy iyo dadow dadka ay halees gaaraysiinina marjiciina iyo qofkii khalad galana culimada iyo dadka ula noqda laakiin takfiirka muayyanka joojiya qofka la gaalaynayo sidaas uu yiri waa gaaloobay hebel buu yiri waa gaaloobay iska ilaaliya qatar badan bay leedahay dhibaato badan bay leedahay tasabud bay u baahan tahay baarid bay u baahan tahay mawaanic bay u baahan tahay jahli baa keeni kara waxyaalo badan baa qofka ku kalifi kara ilaahay ka yaaba sidaasaan kaga baxaya intana daawanayso caalamka joogta aadka u faraha badanna ilaahay waxaan idin dardaarmayaa taqwada ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad baad u fara badan tihiin waxaan kaloo in la dardaarmayaa diinta yaan lagu kaftamin diintu kaftan ma gasho diintu waxa weeye in maxaan ku yiraahdaa lagu ciyaaro oo la isku arrimihiina aad soo galisaan maaha barta jeclaada nabigeena calayhi salaatu wasalaam qof walow diintu waa qad cagaaran waaye faraha ka qaada ilaahay ka yaaba sidaasaan idin dardaarmayaa dhammaantiina Allah idin barakeeyo qof walbana khayrkiisa iyo wanaagiisa Allah siiyo midkii hanuun la'aan haysan Allah soo hanuuniyo dadka cusaada dhammaantiin Allah na soo hanuuniyo dhammaantiin hanuun baa loo baahan yahay naxariis baan u ilaahay kaga rabnaa subxaanahu wa ta'ala محمد الشيخ محمد تليفون كان دعي ما شاء الله الله بركيه شيخ مدر ورنتي وقتiga inaga ogolaaday
waxaan filayaa salaadii baa kusoo gashay kulley haddii uu waqti badan hayo waxoogaa wuu nala joogi lahaa